waxaa laga yaabaa inaad si joogto ah cuntada iyo shaaha ugu darsato si aad uga hesho caraf iyo dhadhan, balse maanta waxaan kuu sheegi doonaa sirta kale ee ku qarsan dhagayaraha, faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo iyo cudurrada lagula tacaalo. haddaba intaan u gudagelin, waxaan si gaar ah kaga codsanahay inaad follow soo dhahdid si ay dhiirigelin igu noqoto, sidoo kale muuqaalka laagsaar si uu dad badan u gaadho. sidoo kale qaybta hoose comment waxaa kusoo qortaa halkaad iga daawanaysa. mahadsan. dhagayaraha waxaa ku jiro maado aad iyo aad muhiim u ah ee loo yaqaano eugenol. maadadan waxay ka hortagtaa ama ay la dagaalantaa jeermisyada jirka soo weerara sida bacteria, viruska iyo fungi. sidoo kale waxay ka hortagtaa caabuqa jirka. maadadan waxay kaloo ka hortagtaa amaba jirka ay ka saartaa walxaha sunta. waxay kaloo ka qayb qaadataa bogsashada dhaawaca ama boogta jirka. sidoo kale dhagayaraha waa xanuun baabi'iye dabiici ah. inta badan waxaa lagula tacaalaa caabuqa iyo xanuunka ilkaha, goosaha iyo ciridka, waayo waxaa ku jiro maado xanuun baabi'iye dabiici ah. sidoo kale jeermiskana ka hortagto ee loo yaqaano eugenol. sidoo kale dhagayaruhu wuxuu aad ugu wanaagsan yahay dadka leh macaanka amaba sokorta, waayo dhagayaruhu wuxuu hoos u dhigaa amaba xakameeyaa heerka sokorta dhiigga. sidoo kale dhagayaruhu wuxuu aad iyo aad ugu wanaagsan yahay caabuqa ku dhaca kala goosyada jirka sida riixa iyo rheumatismka. sidoo kale dhagayaraha wuxuu la dagaalamaa amaba ka hortagaa jeermisyada jirka soo weerar sida bacteria, viruska iyo fungi. sidoo kale wuxuu aad ugu wanaagsan yahay bakteeriyada keenta gaaska ee loo yaqaano helicobacter pylori. wuxuu kaloo sare u qaadaa amaba u xoojiyaa difaaca jirka. sidoo kale dhagayaruhu wuxuu aad ugu wanaagsan yahay habdhiska neefmareenka, gaar ahaan dadka qabo hargabka amaba duriga, qunfaca iyo neefta. dhagayarahu wuxuu kaloo aad ugu wanaagsan yahay lafaha, wuxuuna ka hortagaa cudurrada ku dhaca lafaha, waayo waxaa ku jira macdanta muhiimka u ah lafaha sida potassiumka iyo calcium iyo macdano kaloo muhiim u ah lafaha. dhagayaraha wuxuu qani ku yahay nafaqada jirkeena muhiimka u ah sida borotiinka, noocyada kala duwan macdanta sida potassiumka, ironta, calcium. waxaa kaloo qani ku yahay noocyada kala duwan ee vitaminka, vitamin A-ga, vitamin C-ga, vitamin E iyo vitamin K. waxaa kaloo ku jira noocyada kala duwan ee vitamin B complex sida thiamine, riboflavin iyo niacin. guud ahaantooda waxay muhiim u yihiin caafimaadka jirkeena. wax walba wanaagsan oo caafimaad leh haddii aad si xad dhaaf ah u isticmaashid waxay kuu keeni karaan dhibaatooyin caafimaad oo badan. haddaba haddii aad dhagayaraha si xad dhaaf ah u isticmaashid waxay kuu keeni karaan calool xanuun iyo shuban. sidoo kale waxay kuu keeni karaan xasaasiyad ama finanka maqaarka. waxay kaloo keeni karaan dhibaatooyin ku yimaada ciridka iyo afka sida barar iyo gubasho amaba olol afka ayay kuu keeni karaan. waxay kaloo keeni karaan haddii aad xad dhaaf u qaadato dhiigbax, waayo waxay hoos u dhigaan xinjirowga dhiigga ayay hoos u dhigaan iyo